nabi maxamed oo gabadh naga soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi innii lastu linafsii uriiduha anigu lafahayga uma doonayo buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhan ku weydiisanayo anigu ma aha qofka guursanaya qaala faliman buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddaa ayaad u doonaysaa ergayga ka tay qaala lijulaybiibin buu nebigu yidhi julaybiib baan erga u ahay markaa ninkii wixii uu moodayey waxaan ahayn baa soo baxay markii hore go'aanka keligii baa iska qaatay markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo balaan islaantii la tashado arrinku hadduu julaybiib yahay aan islaantii ku noqdo xaaskii aanu tago hooyadeedaan wax weydiiya buu yidhi wuxuu tegay islaantii inanta dhashay markaasu wuxuu yidhi nebi maxamed baa gabadh inaga soo doonay calayhi salaatu wasalaam iyana sidii oo kaley tidhi nicma wa nucma cayni waa wax ili ku doogsato waa badhaadhe bay tidhi haddii nebi maxamed ba inoo yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi lafihiisa isagu u dooni maayo qaalat faliman yuriiduha oo haddaa yuu u rabaa bay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadha yuu u doonaya qaala lijulaybiibin julaybiib buu u rabaaba ayuu ku yidhi qaalat xalqaa lijulaybiibin xalqan haddii la yidhaahda bay yidhaahdeen waa cuna xanuun xalqa haddii la yidhaahdana bay yidhahdeen biduuni tanwiin waa xiirid waa eray u dhigma halkay soomaalidu ba'a yidhaahdaan ama ba'ayeey ama wax la mida yacni waa waxaan rajaynaysa waxaan ahayn ayaa ku soo baxay se iyadu moodaysay si aan ahayn baa soo baxday laa lacamrullaahi laa usawiju julaybiiba ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anigu inantayda siin maaya bay islaantii tidhi odaygii mar hadday islaantii ka hor timi wuu kacay markuu is yidhi xaggii nebiga qaba calayhi salaatu wasalaam inantii way maqlaysaa warka dhex socda aabbaheed iyo hooyadeed ayay xagga dambe kala hadashay waxay ku tidhi waxaan idin weyddiiyo yaa iga kiin soo doonay markaasaa la yidhi rasuulkii ilaahi calayhi salaatu wasalaam say tidhi atarudduuna calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam amra oo ma nebi maxamed baa hadal ku celinaysaan markaa intee nebi maxamed idiin yimi oo yidhi gabadhay siiya miyaa haddana nebigii celinaysaan bay ku tidhi aniga nebiga igu wareejiye bay tidhi waayo nebi maxamed marnaba aniga i dayici maayo ee hadiidina warka nebiga calayhi salaatu wasalaam